markii ugu horeysay magaalada Godinlabe ee gobolka Galgaduud waxaa laga hirgeliyay leerarka ku shaqeeya ilayska cadceedda ee solar systemka waxaana mashruucan oo ay bixinayso dawladda Norway fulinaya maamulka degmada Godinlabe leerarkan oo ka kooban 30 baallo ayaa qorshuhu yahay in laga taago hareeraha laamiga Godinlabe dhexmara si habeenkii bulshadu ay iftiin u helaan gudoomiyaha magaalada Godinlabe ee gobolka Galgaduud Cabdiyare Macalin Qase oo maanta xiray baalihii ugu horeeyay ayaa ka warbixinaya waxyaabaha ay ku soo kordhi karaan leerarkani bilicda iyo horumarka magaalada waxaan dhagax dhignay oo aan maaragtay bilownay suritaanka leerarka cadceedda ku shaqeeya baalihii koowaad ayaan taagnay saakay oo faa'iidadiisu aad iyo aad ay u ballaaran tahay muddo badanna ay sugayeen dadka reer Godinlabe inay nasiib u yeeshaan ayaa maanta nasiib u yeelanay gudoomiye Cabdiyare ayaa sidoo kale sheegay in maamulka iyo bulshaduba ay ku dadaali doonaan sidii uu guuleysan lahaa qorshaha leerarka cadceedda ku shaqeeya loogu hirgelinayo Godinlabe waxaan rabaa marka bulshada reer Godinlabe wuxuu u baahan yahay mashruucan ilaalin iyo maaragtay ka taxadar inay bulshaduna ilaashan doonaan reer Godinlabe maamul iyo dadweynaba inaan xil iska saari doonaa ayaan rajaynaynaa qaar ka mid ah bulshada Godinlabe ayaa soo dhaweeyay dadaalada leerarka iftiinka qorraxda ku shaqeeya loogu hirgelinayo Godinlabe waxaan u sheegaynaa bulshada Godinlabe ama maxaa tira dadka wadanka meesha hadda inta taaganba solarkaani inuu qayb ka yahay nolosha degmada bulshada ku nool inuu ka qayb qaadanayo ganacsiga bilicda iyo quruxda magaalada inuu ka qayb qaadanayo maxaa tira amniga iyo maxaa tira tuugada oo yaraanaysa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay danaha dhalinyarada Godinlabe kulli waan ku dadaali doonaa sidii arintani aad iyo aad loogu manfaacsaday waxay kor u qaadaysaa ganacsiga degmada waxay kor u qaadaysaa xagga amniga iyo ka shaqayntiisa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado